الله ما هتسكله إلهنا نمهد إلنا مرة وانو واجب ومركي وسهل انتهي أنك هوش يعني نفوذي إمرات كان كلهين يوين كي هل كان يعني معلوه إذا كان إلهي دي فوزينا هل كان تمادان أو قارك الملف فوق كتمادان وعن رجينا إن شاء الله سنة وضع قفل ونقض كويس يقوليس وحان هاد علنا يا سفيرك يهو ذا النظر سفارة وصيد الله شيء رنتي شقاءات يا بالله رقبتي وسوت قليي رنتي إنه وقت بدن يجوب بدن قليان سيدي نوحي لها لوكيشن كان وأنا كلاقانا مقالة أي تاي ميل برايم إيريا ومهمة وسفارة بدن يكويالان وحال في لا وقت أنا وكله إن أن هذانا هاي سومالي حالة كتيرلو ميل فوق ولغلوقة أنا كله منه لكن الحمد لله إلهي وما هذا أسكاله إن ذكي وحنور هذه يعتبرتنا سجيني وناس وتك شيء إن المانت ماشان سوي مع إنه سفارة أنا هلكن هنكفونه وحنو مهد إلا يا جالية سوماليات ميلك كلا فوق كيمت يكوا دي سي إيو فرجينيا محمد هذا نوجي يمت أو كسر قيب قلي حفلتان وجعلان لها sidii la ii doortay hadda ay ugu horeysay inaan Mareykanka ku soo noqdo oo qorsheygu uu ahaa inaan tago Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo Texas iyo Toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyeen waxa way sidii noo taageereen waagin qaran aad iyo aad aan runtii uga mahad celinayaa taageerada mar walba ay u hayaan dawladda iyo wadaniyadooda mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dawladooda insha Allah waa idin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaas aan sheegay waa booqanaya hadii ay yiraahdo ma insha Allah waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyay oo suurtageliyay sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxaysa in wax loo beeqaamiyay wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaradan oo ku taalo Washington oo ah dawladda Mareykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hanti ma guurta ah runtii wasaaraha iyo golaha wasiirada runtii uga mahad celinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii aan soo celino waana ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maanta wanaani weyne maanta wanaani weyne maanta runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan aad iyo aad loo soo qaban qaabiyay quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay aniga hadde meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha la soo maray marxaladaha la soo maray waa aqaanaa markaan taariikhiyan kaga taabto runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dawladda Soomaaliyeed ugu lahaan lahayd hanti ma guurta ah oo safaaraddu ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo waliba laga iibiyay meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo magac wali ma leedahay meesha ha oo ay deganaayeen dawladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dawladaha Carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taala aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isagana magaalada idinla degan
oo habeen iyo maalin ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda Soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyay oo horey u joog jiray Cabdullaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday rabo inuu dhameystiro inuu Ilaahay ku soo celiyay isaga naftigiisana runtii dadaal badan u galiyay ilaa hadda markii ugu dambeysay xaalad iska halawday hadda safaaradii dhan baan ku weynay marka iyo magaceynayba wixii 91 ka dambeeyay alxamdulillah hadda Ilaahay annagu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadano safaaradda mugta leh oo meesha ku taala si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana intii aad ugu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in rabin la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeena inaan soo celino sharafka marka annaga ajandayaashana loogu horreeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celino oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waana doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto hadda waxa weeye waa moogtahay waa wax dheeraada way marka intaas inaan ku xamdi noqonno waa ilowni alxamdulillah inaan raacno intaas oo wanaag Ilaahayna siiyay marka qabkeena inaan soo celino sharafkeena soo celino karaamadena soo celino laba waxa noo ahaa inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taagannahay oo foosho xun inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyay intii ka horeysaba dee xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku uu helo xasilooni siyaasadeed oo dawladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaas waxa la gaaraa wixii la qorsheeyay in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka sidoo ahaan jiray waxay ahayd sanad walba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii isku higi jiray yaan meel dhignay ma fahanteen madaxweyne iyo barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseen mahor xasiloonida waa meeshaas meesha ka amaanayso dal hadduusan xasilooneenna cid aaminaysa ma laha cid kulama aaminaysana ma laha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminayaan inay sii shaqayn karaan beesha caalamkaana kulama shaqayn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo ugu horeysa musuqmaasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa kaliya ee dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhaxayso taasa marka waxay keentay inaan bilowno maxaan ka bilownaa dhismaha xagee ka bilownaa inaan safaarada ka gadano xagee ka bilownaa inaan soo celino adeegii dadku u baahnaayeen shacabku u baahnaayeen xagee ka bilownaa nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda Mareykanka inaan ku yeelano meel biri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhismaheedana aad leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulalkii burburay oo dhan safaaradaheennii bacdama burbur lagu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftigoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno
وماشي أن شالي أدون كجرني أن كجرنو إن شاء الله سفارة عصبنا إيبنو كوكا تايلاند إيه ساوث أفريقيا إيه إله دونه سهلو كندا هدو إله يراهدو دقالها حيسن دقالة بدل ما دل فخريان نهي دل كيسي وكلام قيني هاي أو قيب سنام بدل إيجرتو محال يراهدا عشور بدل دتكو يسبحين دت كان دياسبرا أو دبده الجو لفت وضع إسم قال صفيرين معناها وحي كبد فاهم الكودي إسم قال صفيرين لكن وضد وحنا الله أنت أصلا وحواش شيئان سوشيال ميديا وحبنا واش شيئان ما شاء الله ما شاء الله ها مركا runtii dhaqaalahan waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama dhaxanin ama jabka aan la gashanin waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakay leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibraddeeda leenahay musuqmaasuqu wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meesha na gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahina waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaan nahay oo Soomaali ah soo saas ma waxaan waxa weeye waa dhaxal Soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii naga horeeyay ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeynayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay kaliya maaha in waxna laga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaadna siisaan oo garab noo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna waxaani waa dhaxal ummadda Soomaaliyeed leedahay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 15 sano ka bacdi xaaladdeena iyadoo sidaan si ka sii fiican inaan meeshan uga sii guurno meel ka sii weyn oo ka wanaagsan waxa weeye dhaxalkaasi waxa weeye dawladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar u leh ma laha dadku waxay isku khaldaan maamulaha iyo dawladda waa idinka marka dawladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq hadaa madaxweynaha caayisaan idinkaas caayay maxay yeelay idinkaas taan qaran iga dhigtay aniga marka qof caayay ka warrama marka dawladdan idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tagin yaa loo baahan yahay in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in listoosiyo oo lisoxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeelay waa dhaxal wey haddii la dumiyo waxaan aya malaha annaga haddii hadda sartaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya waqti un baa naga halaabi lahaa waqti naga khasaari lahaa 5 sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahaayeen ama 10 sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyno marka oo qof walba dawladdu uu dareemo inuu isagu wax ku leeyahay oo wax ku darsado intaan iyo in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda caqligeedana waa haynaa laakiin waxaa la rabaa in dawladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in la iska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dawlad la'aan waa soo aragnay safaarad la'aan waa soo aragnay hanti la'aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxa lagu gaari karaa waxay tahay wada jir iyo midnimo dalkiina marka dalkiina iyo dawladdiina ما شاء الله باش حماسة ولا كم وقتها مركب وحبها كلها كرننا وح ما صير إنسان مع عبد الله وح قبل إنسان وناك وح أقواتين نفتينا إيه دلكيني دول مدينة ما هي الدول اللي هدي حنتها هاي هذه اللي قوم احترامها شو بقرن باسبور كان يلا باحترامها مركب ويا صومالنا حجيس بحر القلية ما هي الجوري أجاحد marka gurigiina wanaajiya gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama
وحوي قفل بوقته ليه قف كاسنا شقوا هيا شقدوا هيا مالين والبوحبو كبري مركا وحلو بهيه أنه وذ جرنا دولة دين عند سنة أنه وذ جرنا دل كان عند سنة وقفل بابا ودنيتي يباتريوتيزم كي الهانجرني قفل من سوء عليه قبل وحوانا ترواي قف جعليسن وحوانا ترواي يا قبيالد وانا ترواي وإن الله نقول مركب ماشي أن قاني أو صومالي إسكودو بدي أو وح وضل هيد أو وح وهري وضل هيد هي دولة نمو يضل وما سنتين وحان ربا جالية إنهم لدر دارمو أو أن فرين أدرو جالية الصومالية أو كل مريكنك هي كندا هي قربها جود أهان إن دولته دقالة إيه كما هيشوا دولته دقالة وحكاية شدت كذا هي سيدة وقع فريهين أي وطنيين ويهين باتريوتيك ويهين سيدة الله شيء إن وحوي إن وحال نكربها أنت هرتينا سميسان أو إن سفيرك بورجيسي يو قنصلية عن سمين دونه يو بوري مرتين صدقته أنت وكأرجنا هدو قف كاستو حوجا وقو قرئو كانوا أنتاس إنك بدو واسمين كرنا أنتاس وحاضر بعد ما دلك يدول من الذي هين إياه نفط كذا قرشة إن السمايو أو أنا قرشي عن كأنه أو سفيركو يهون ذنا سفارته كشقيان إن قف والبابا وتورعه وبحيه دلك يسوق بحيه maxay waxa anaga aan qabanayno oo aan ku darayno waa wax idinka awood leedihiin diyaar mudan madaxweyne diyaar waxa awood leedihiin way anaga shaqadii kaliya shaqaalana shaqadii kaliya yaan idin haynaa kaliya talabaad waxa way dad badan baa degan oo aad far badan saameyn badan ay leedihiin marka isku duubantihiin oo wadaniyadiina ay leedihiin saameyntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dawladdiina yaad uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo Soomaali ah waxbuu hayaa qof aqoon buu hayaa qof dhaqaale uu hayaa qof ganacsi uu hayaa intaas markii dawladda aad la joogtaan oo si fiican ula shaqeysaan saameyntaasi waxay gaaraysaa dawladdiina iyo dalkiina gaaraysaa markii aad u shaqeysaan kali wax way waa soo aragnay laakiin markaan wada shaqeeya سفارة وحلاقة ربع أيضا مرك جالية داس إني أبابوشو جالية إني أبابوشو أو هنتي أي محاكورة هذا أورينتيشن بدنسيسو أو أي وتكتو ماله دقيقين أي معلومات دلك ومرايو أي وشكتو وحيابها ما هو صور قرآن أنت بدن وبين وجاده وبين بين تسمع كلام غشام واحد وجاتان ما مك بعدين بين تاعي هذا بين كانوا ربع سنة صار هذا وجالس سنة بين تاعي أو إحنا وريريين مركب وحال ربع فلتر إن الله نو وهي الذي شو أيضا آمنين مركب دولته سفيرك يهولدنا كمسؤولة إن تجان أيضا قوة بحيان أنا جل وزارة ديننا information يدو نفتيجه وبحين سميسه أو إيدك الله هذا الشو إن شاء الله سي أن بلايز قرينه شعبك دبده الجوجة سفيرك يهولدنا وحلاق الربا دتك الصومالي ده واحتر كود إنك فايدستان إلا دتك سكو ليفل معه إنك فايدستان وحلاق الربا إلى تكلاش قيسان سيدي لو قار لها دولة هدي تاعي سيدي لو قار لها جرع ستة سيد الكيلومتر قليو هدي تاعي جامعة سكولة سيد لو قارو هدي تاعي جرائد يدا بين بالو قرا هاي اللي مركل اللي راح الصومالية وحكسوا بحي وحن وضد إذنكم كلام في وحاس والله جاي قاركود إن الصوماليين لكن وحسن أصلا ما يقانا مركل جرائدات إيه نفتكر لجارسيو أنا وبنا نهاي ده الهروب صعدة ده ريكفري سمعنا يا أو كنتي ميل وين هيكسنا يا دولة واحد كاستاسكات اللي واديجي سكده فيري سو ما قرن سكده فيري إلى ترى دولة ووناكسنتها دولة ووناكسنتها لكن وحلاقة يا أبا ميل إنه بعيني هاي إنه وحكي صعده مركا سفارة دي هولدين وحال ربع إلى إساس يقدر تقول شقيان أو دولة إيجاران محكورة هذا ضد ديوجا مريكان كان إيجاران إذا كان أقول قطع الباب دي فولنتير الله شقيسان هدول الله يرادو هذا الكي وحن كسور جبجبيجي
إلهي وحن إلهي وقبر يا سوماليا إلهي إسراعه وأن يدوده إلهي قلوبه إنه سعليه إلهي إنه علاده يدبطه كساره إلهي سومالي إنه قوليه ووحي هيستان وإلهي تصوه إلهي وحي بار هيسنايه إن شاء الله دو إلهي رادو كسو نقونا يا حفلة أنت كوينة واسوي معنا إن شاء الله دو إلهي رادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii aad ku cusub tahay channelkeena sahanka wararka fadlan subscribe inoo saar aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb mahadsanid